waana suutan waxaanu ka wada hadalnay waxa la yiri doorashaha la qabto sidaa loo qabto state wali Allah meelood ha lagu qabto aan idin weydiiyay maanta guddi baa la iga sugayaa waxa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano waxaan sameynaa waxaan noo qiran laba caasimad gobol baa la yiri inaan Kismaayo iyo Galbeed ku qabano Jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa jabadii ciidan baa lagu sii daayay waa goorma jabadii sagaashamaadkii la bilaabay maanta soo noqotay jabad wax lagu raadin karaa jabad inay maanta noqoto inay iyadu ka taliso waxa kaaga daran waxay wataan warqad gobernatoraha gobolka Gedo ee Jubbaland maamulka Jubbaland ee kan who is Jubbaland anagu aanan maamulaynin ee Jubbaland xagee joogta shalay baan arkay warqad nin soo qoray oo leeyahay maamulka doolo iyo kan iyo waxaan kale maalin walba wareegto Jubbaland war Jubbaland ayaan darana goorman jabadnimo ka soo gudubnay doorashada aan qabanaynay waa in waxaan ku heshiinay dhacdo waa sax waxaan rabnaa doorashadaas inay dhacdo waqtigeeda ku dhacdo dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba loo meelood ku qabto waxaan diyaar u nahay inaanu qabano oo labadii meelood ku qabano laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyihii gobolka uu tago ee ku-xigeenkiisa uu tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku sameyn karayaan laakiin doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooca afduub uu yahay doorasho kuma dhacayso wadankani wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo wixii lagu heshiiyana la fuliyo aan dirno guddi xageenu diraa dadka maanta mas'uuliyadda wadanku ay saaran tahay madaxweynaha iyo cidii maamulka dhexe dawladda federaalka waxa looga baahan yahay inay kala saaraan habraaca doorashada nooca doorashada iyo sida u dhacaysa iyo campaign-kooda siyaasadeed waa inay kala lama noqdaan ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaan baan tagayaa dharkan aan tolanayaa sidaa la ii doorto no ma dhacaysa taas waa in loo sinaado oo noqoto doorashadu mid loo simeeyahay oo midda maandhow ay musharaxiintu ka hadlayeen oo ilaahan war muwaadiniin baan leh xuquuqdeeda aan helo waa shay meel looga wareegan lahayn waa in la isqanciyo shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo kusoo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE